السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجيء ودكتور إفراح اسمان صلاة waxaan ka shaqeeyaa isbitaalka jaamacadda Jazeera maalinta kansarka adduunka. Waxaa loogu talagalay in caalamka oo dhan ee dadku awareness looga sameeyo dadka qabo iyo dadka kaleeto oo halis ugu jiro. Kansarku waa unugyada jirka qayb kamid ah oo si qaldan u koraan kadibna ku faafo qaybaha kale ee jirka si uu u keeno cudurro kala duwan ama uu u saameeyo meelo kala duwan sida kansarka caloosha, kansarka beerka iyo kuwa ku dhaco afka minka. waxaa jiro waxyaabo la xiriiriyo inay kansarka sabab u yihiin oo loo yaqaan risk factors. waxyaabahaas qaarna waa waxyaabo la bedeli karo oo dadka wacyigelin looga sameyn karo si aysan mustaqbalka ugu dhicin. waxyaabaha qaarna waa waxyaabo aan la bedeli karin. waxyaabahaas waxaa kamid ah number 1 caabuqyo ku dhaco jirka oo ugu horeeyo cagaarshowga nooca B-ga iyo cagaarshowga nooca C-ga. sidoo kaleeto virus ku dhaco minka qaybihiisa kala duwan oo loo yaqaan human papilloma virus kaasoo hadhow keeno kansar ku dhaco afka minka oo loo yaqaan cervical kansarka. waxaa kaloo kamid ah bacteria oo H pylori oo iyadana saameyso caloosha taasoo mustaqbalka keento kansarka caloosha oo loo yaqaan gastric kansarka. sidaa daraadeed waxyaabahaas qaar oo caabuqyada qofka ku dhaco ma aha wax la bedeli karo marka laga reebo kuwa qaar oo leh talaalo oo kamid yahay human papilloma virus iyo hepatitis B viruska. kuwaas qofka haduu vaccine ka qaato kuma dhici doono mana u keeni doono xanuunkaas. waxyaabaha kaleeto oo la bedeli karo waxaa kamid ah oo na keenan kansarka inta la og yahay isticmaalka tubaakada iyo cabida alcoholka. sidoo kaleeto waxaa kamid ah hawada wasaqaysan ama air pollution waxa loo yaqaano ayaguna waxay ka qayb yihiin in ay keenaan. waxaa kamid ah waxyaabaha kaleeto genetic ama familial history waxa ah oo ah in bukaanadan xanuunka qabo familkoodii horeeta ay lahaayeen kansaro taasna waa waxyaabo la arkay dadka kansarka qabo inay saameyn ku yeesheen. sidee looga hortagi karaa waaye sida ugu fiican waxaa waaye qofka in uu loo sameeyo early detection wax la dhahayo oo ah xilli horeeto in la ogaado lagana hortago. midda koowaad waxyaabihii la bedeli karo oo kamid tahay in qofkii talaalo oo qaato cudurrada qaar in tubaakadii iyo alcoholka iska joojiyo waa waxyaabo la bedeli karo. sidoo kaleeto qofku inuu active noqdo activity badan sameeyo ama jimicsi uu sameeyo iyadana qayb ay ka tahay. waxyaabaha kaleetan waxaa waaye early detectionka waxaa waaye hadii qofku wax kamid ah calaamadihii hadeerta aan ka hadlaynay ama xanuunada noocaas haduu isku arko tusaale ahaan hadii laga sheego hepatitis B ama C inuu la xiriiro goob caafimaad oo check up isku sameeyo si loo ogaado xilliga uu halista ku jiro iyo xilliga la caawin karo. muhiimadda ugu weyn waxay tahay qofka hadii kansar uu qabo in loo sameeyo palliative therapy wax loo yaqaano ama si daawooyin caawinayo in waqtigiisa uu sii dheeraado ilaahay waqtiga bixiyo. waxa ugu muhiimsan sanadkan oo halku dhiga ahna waxay ahayd in loo midoobo wacyigelinta kansarka si loo yareeyo dulduleelada keerka loo sameynayo dadka kansarka qaba. ma maasantihiin.